qisada maanta aan inoo wado waxay dhacday sanadkan hadda aan ku jirno 2023 waxayna qabsatay si guud ahaaneed wadankaasi China ay aad ugu baahday iyo meelaha qaar caalamka laakiin lama wada ogo oo ma aragtay qisadani waa qiso sida aan dareemay laga ilaalinayo inay baahdo oo xoog la saarayo si loo baahinin because wiilka TikTok-giisa marka aan TikTok hashtag ahaan ugu qoro yani wax badan oo ka hadlaya ma lahan laakiin website-yada bay ku jirtaa marka wiilka magaciisa marka ku qor halna kaliya ka hadlayso on video hordhacan ku dadaal inaan idin soo dhigo marka qisadan anigu wiilka bal soo kora diyaaradda maanta waxaan idiga dejinay indha yartii baan marti unahay ilaahay nagu amaansado yaa xaaladu waad ogtiin duruufaha dadka jeexjeexay soo kora diyaaradda maanta waxaan ka degaynaa halkaasi wadanka Shiinaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو soo noqdo wanaag soolaaladeyda qaaliga wana walaashin hodane jalkaadiga taamso jalkan adiga barateen hodan online daawada haday taa markii ugu horeyso soo booqatay soo dhow gacmo furan subscribe nagu dhiirigeli videogan haduu ka cajabininba maadaama waqti aan geliyay like fara badan iska saar free maahano كشب الله يتوه محسنتين وحي تالية تصالة مسابرات قبطان قيبتا كومنتيga igula wadaaga waxaana lagu dadaalaa hada su'aal qabteen in leedin kaga soo jawaabo insha Allah videogan waxa rajeynayna aad meel dheer aad gaarsiisaan oo noo share gareysaan oo saxaabtiin iyo family-giina iyo qaraabada iyo silaan dheeranimo ku jirta iskula wadaagtaan oo mahsantihiin basadana waxay dhaxday January okay qisadan waxay dhacday 14 June okay 14 June 2023 ayay dhacday yani hada almost 6 bilood ka hor ayay dhacday qisadan sanadkan ku jirnay maalintaasi maalmaha kamida oo maalintaasi ku aadantay 14 June January 14 January 2023 ayay dhacday qisadu raacday January aan ka wada 6 bilood hada laga jooga koodi bisha waay okay nin security ah oo ka shaqeeyo meel school waliba school private ama madrasa daakhiliya wax la dhaho laakiin Soomaali ahaan madrasa daakhiliya waxa laha arintii wadankeena inay ka jirto laakiin schoolka ilmaha school baad geynaysaa sida jaamacada oo kala waaye ilmuhu halkaas uu seexanaya ku wax cunaya waxna ku baranaya okay sida camp oo kala waaye tamam okay ninka marka meeshaas schoolkaas noocaas in private schoolkaas ka shaqeeyo waa security ama sabab waaridiye saad u taqaanid ayaa maalmaha kamida laami wuxuu iska socday meel oo garden oo ay leedahay schoolku ayuu iska lugeynay asaga iyo eegiisa yar ayaa lugeynayo deeno lugeysna way u tahay ama samajabaxsina way u tahay wixii de schoolka de meel wax ka yaraha leesayin hadu qashimeel yaalo maadaama dad dhalinyaro ay meesha wax ku bartaan iska lugeynay sidii wax dayactir u baahan soo u dayactiro ama sababtay uu la socodsiiyo qaybta schoolaadka ninkii markaas oo iska lugeynaya ayaa marka maxaan ku dhihi lahaay yar ayuu watay ninku oo yar marka eegiisaas marka meeshan marka waa dhismo aad u weyn waaye waxay u dhigantaa schoolku gees to gees waxa loo kala soconaya 4 saacadood gaari maaya lug lug haduu ardaygu rabo gees to gees madrasada inuu aado 4 saacadood uu kala lugeyn karaa daamin waa dareemi kartaan xajmiga ay la eg tahay schoolkaasi laakiin anaga waxa muhiim noo ah 2 sar ama se 2 building ama 2 dabaq ayaa anaga qasadeena dhan nooga filan laakiin waxa meesha ku yaala 6 dabaq waay tamam 6 dabaq oo halkiiba uu yahay 14 door ama se level weeyaan okay laakiin anaga 2 dabaq baa muhiim noo ah tamam gate to gate sorry 2 sar ee anaga muhiimka noo sawirahan yani ayadoo diyaarad lagu sawiray baan idin soo dhigay laakiin 2daas sar
waxa u dhaxayso gardenka ugu weyn iskuulka dhan. Okay, gardenka iskuulka dhan ugu weyn ayaa u dhaxayso 2 saacadood baa qofku gardenkaas u dhex lugeynaa. hadduu qofku sartan inta kasoo tago sartaas oo raba inuu aado 6 hours ayaa u dhaxayso. hadduu qofku ordayni waayo qofta iska tatalaabsanayo like qofka hadduu ordo waxaa laga yaabaa less than 1 hour xataa inuu ku gaaro sar tamam. Okay, geeda marka waxa ku yaala dhaadheer meeshu marka waana garden waana kayn camal. Okay, waana kayn camal laakiin the kayn ma hada kayntii aan naqaan duurka ma ahaya waa kayn laakiin ma aragtay qayb football ah leh qayb la iska fariista leh qayb biyo yar oo webi u eg laakiin biyo yar oo caata u dhex marayo adeed si ma aragtay meeshu waa يعني meeshaas iskuulkaas private-ka waa school international eh. Okay, ma iskuul la mees gareyn karo. haddaba ayadoo saas ay tahay ayaa ma aragtay ninkii asoo iska socda ayaa eygiisii dhinac buu u ordaya ninka waardiyaha. eygii wuxuu isku day markii inuu soo jiido oo ma aragtay sayid jidkoodii ay u sii dhameystirtaan socdaalkooda ay u dhameystirtaan. eygii dhinacii u ordayay buu ninkii iska raacay. suu u socdo eygii u daba socday eygii wuxuu hoos istaagay. Okay, wuxuu hoos istaagay geed iyo derbi meesha iska galayaan xarig baa ku xiran. xarigaasna waxaa ka laalaado qof dhalinyaro ah oo nin rag يعني nin u eg markaas ahaan de maadaama uu timo lahayn baa nin lagu qiyaasay maana laakiin nin u eg laakiin qofkaasi marka waa qof already jirkiisa qayb kamid ah baaba'een oo farihiisa la sheegay inay lafaba ahaayeen. ada qof bani aadan oo geedkaas ka soo laalaado oo derbiga dayr baa marka meesha ku yaala gardenkaas maadaama gardenku de la soo koobi kareynin. tamam, iskuulkaas marka waxyaabaha qadiyada loo qarinayo oo loo hide gareynayay kamid tahay gadaalana ku ogaan doona. almuhim ninkii waa naxay uu orday amnigii u sheegay iyo laamaha amniga isla markii laamaha amnigii ayaa la wacay. tamam, xariga uu qofkaasi ku xirnaay oo qoorta ugu xirnaay oo geedka loo suray waa shoeska boot kabaha sportska xarkii leeyin soo ma oo ku xirano xarkii baa qofka inta qoorta looga xiray geedka laga soo suray. Okay, adaan ku dhiibay xarig shoes qof nool miyuu hayn karaa? waxa leedahay hodan ma hayn kareen naga daa ciyaarta daawada kugu raacsanay ma hayn karo laakiin qofkani maaha qof hilibkiisii joogo waa qof already dhamaaday waa la fayar oo caata ah. tamam. Okay, wiilkan yar ee meesha suran waxa loo gartay inuu wiil yar yahay. wiilka yar ee meesha surana waa wiil yar oo la weysanaa muddo dhan 126 maalmood ayaa wiilkaas yar la weysanaa. wiilkaas yar wuxuu ahaa wiil yar oo 15 jir oo la raadinayo. qisadan marka wadankaas horta aad ay uga caan noqotay laakiin ma soo gaarin wadamada qaar. Okay, sida wiilkan marka loo galay iyo rafaadka uu maray bacaan ka sii dhigaysa. iskuulkaas waxaa la yiraahdaa magaciisa Zaychai. iskuulka private magaciisa asla Zaychai baa la dhahaa. سائدين سو شيء أنا قلبا سر أيا نو مهمة سر واحد دجن معلمين تا مديرين تا إن أوفيس كا هذه سر وحلاقة معمولة سكول كلام سر كات سر طلبات كلنا وماشي أي أرديد دقيقين فوتبول بقويالو باسكتبول بقويالو جيم بقويالو سويمين بول بقويالو جاردن كنا وابكده لبعض سر ودحيو ويسفعني سمعهم تمام school kani sa idin sheegay in dhexdiisa loo soconayo 4 saacadood. Okay, school kani wuxuu leeyahay 3 albaab 3 doors buu leeyahay. doorka ugu koobaad ee ugu weyn waa albaabkaas mar walba lama furo waxa la furaa marka schoolka xaflad ka jirto markay qalin jabin schoolka ka jirto iyo marka schoolka la furayo sanad walba deeyno schoolaadka marka la furayo first day oo schoolka la furayo bala fura adi xaflado iyo munaasabado waaweyn ama marka madax la soo dhaweeyo albaabkaas la fura. albaabka labaad waa albaabka ardaydu ay ka baxaan marka ay waalidiintooda soo booqanayaan
iyo marka ay waalidiintu ardaydooda ilmahooda soo booqanayaan because ilmaha saa idin sheegay iskuulkaas bay ku dhex noolyihiin waalidiintooda lama noola ma aha haddii iskuul intaad tagtid wax soo bartid soo laabanaysan ma aha fahamtu albaabka saddexaad marka waa albaabka ugu yar waaye waa albaabka loo isticmaalo sida maalinlaha daily use-ka waaye maalinlahaas loo isticmaalo albaabka loo isticmaalo weeyaan albaabka saddexaad tamam waxay leeyihiin CCTV ama security camera ayay leeyihiin albaabadu every corner oo iskuulkaas ku yaalo wuxuu leeyahay kaamirado waxaa la sheegayaa kaamiradaha iskuulkaas ku taalo iyo dadka meesha ku dhaqan amase macalin amase mudiir amase shaqaale amase arday calaa qofkii waxaa ku aadaysa hal kaamera so waad dareemi kartaa cadada ay la egyihiin kaamiradaha ku yaalo iskuulkaas wafahanayso maaha taas macnaheedu waxaan uga gol leeyahay mise aan uga dan leeyahay ba waxay tahay inaysan jirin wax looga baqi karo ardayda haddii ay wax dhacaanna si sahlan lagu soo heli karo maadaama meesha tahay meel securitykeeda adag yahay dad xataa security ay joogaan meel walbana ay kaamir ku xiran tilawkeeda sida loo maleeyo laakiin sida xaqiiqada ah haddaanu ogaan doonaa qasadayna waxay ku socotaa arday la dhaho magaciisa Hoshingyu sawirkiisa waa ujeeday waa wiil yar oo 15 jir oo ku dhashay kusoo barbaaray kana soo jeeda wadankaas indhayarta ama Shiinaha maalintaas 14 January markii saacadu ahayd 5:49 PM ayaa wiilkan yari uu qabatay kaamirada asagoo oo sii galaya qolkiisa uu ka degan yahay sartii labaad uu ka deganay balkonigiisu tagay 3 daqiiqo camal ayuu istaagsanay waxaa kaloo xalay toole aan ka soo ogaaday qisadana waxay tahay qalimaantana wax ku qoreyno horta Shiina oo wadan horumaray oo teknolojiyada dhanba ayaga at the moment laga soo gaaray qalimaantana wax ku qorano in ay wadankaas kuwa qalimada qaar laga isticmaalo ee caduubaan yani hadda anigu qasaan idin yani qisada horta buugaan ku soo diyaarsadaa si aanan detail uga iloobin si aanan wax u qaldin laakiin ma qaldan waa ilaahay marka qaar wax waa khalda taariikhda khaldi kara magaca khaldi kara wadanka khaldi kara laakiin dadaal uma yara marka hadda waa qalinkan uu duubaya maalin walba qisadan idin soo bandhigay sas camal qalimaan waxay qabaan codka qofka bini aadanka duubayo wiilka yar marka balkonigiisu aaday class ayuu waxa uu lahay 7 PM markay saacadu tahay okay wuxuu ka soo laabtay ka soo baxay qolkiisa iyo balkonigiiba markay saacadu tahay 5:51 PM so wiilkan yari 3 daqiiqo ayuu qolkiisa iyo balkonigiisa u joogay tamam maadaama 7 PM uu qolka uu lahay school uu lahay class waa inuu alaabadiisa iyo wixiisa uu soo qaatay halkaas iyo wuxuu u la baxayaa markaasi meeshii uu maaragtay classkiisu u lugayna wiilkii yara uu soo baxay على أساس وحو أصعد كلاسكيسي بالا بلابي إن 10 دي معلمة وي سكتي إلا إيو دوري 20 دقيقة مركو سي مقايا هاي بيتري سبيشالي أرديان ما إهين wax looga bartay inuu ka soo daho classkiisa inuu gooyo ma ahin arday wuxuu ahaa clever balamaha ku fiican ka kaftan iskuulkiisa wax barashadiisa soo marka maadaama caadana u lahayn ba macalimadii waxay la xiriirtay laamaha amniga oo marka security schoolka la shaqeeya iyo mudiirka waxay ku tiri arday hebel maanta classkiisa muusan soo galin markii qolkiisii kaameradii laga fiiriyay wiilkan yari waxa ugu dambeysay la arkay asoo buugaagtiisa wato oo classkiisa u sii socda laakiin qolkii uu ka baxay kaameradii qolkiisa asoo buugaagtiisa wixii wato qabatay ma aysan qabanin ilaa iyo intuu classka ka sii aadayay wixii dhacay okay wala raadiyay musqulaha library-yada gymka footballka basketballka meelaha gymka meel laga raadinin male wiilkii yara wuxuu noqday bariis buur lagu dhex tuuray kaalayba adigu hel
kaaliba adigoo cag iyo jaan meel uu dhigay baa la waayay 3 saacadood wiilkan markuu sii maqan yahay oo macallimiintii meel aliya meel wiilka yar ay u raacaan ay waayeen ayaa waxay waceen family wiilka yar dhalay waxay ku yiraahdeen hello hebel families miya heblaay miyaha wiilkaagii meel oo maray cag iyo jaan ma jirto waa weysanahay waana raadinaynay for last 3 hours si aan u make sure garayno يعني دي هدي اللي هلي كارين كيس أنا دي إذن كان إذن كان نحنين لكن هذا لوق والبا إسكول كويا يبور والبا إسكول كتالا هذه مالك هذين ما له ويل كيني ولا ويسين هي هذا اللي قلت عليه ويل كير فاميلي يسا إسكول كوي إسكول جيران 3 hours or drive أنا 3 ساعات أو جاري وذا فاميلي جودي ويل كير والدين تيسي باقي مدي markay la kulmeen macallimiinta horta mudiirku uu diiday sababta uu diidayna gadaalan ku ogaan doona inuu la kulmo waalidku uu diiday inuu mudiirku uu diiday inuu la kulmo waalidinta laakiin macallimiintii baa la kulantay si u qanciyaan oo de xal loo wada helo family-gii intayba soo socdeenba already laamaha amniga ayay soo waceen laamaha amniga way ugu soo horeeyeen oo sii sugeen family-ga markay yimaadeen iyo laamaha amniga loo wada joogo baa lagu yidhi wiilkeena goormaan igu dambeysay bla 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 you know waxna fahansiiya ilaan anigu waa soo kacay waagaa beriya waa soo kacay waa la waayay wax inuu qof weyn oo macquul oo qaadan karo maahana wax la qaadan karo noo sheega duu ilaahay ku idmaayo xidhaadi wiilkiinu anaga agteena wax problem kuma qabin anaga agteena wax dhibaato kuma qabin qof ay isdagaaleen male qof dhibaateeyay male macallin erey xun dhahay male so he have no reason oo ku baxsan karo mana baxsan karo aslan maba even if he tries maba baxsan karo because albaabada koo xiran yihiin laba security joogo albaab walbo 3 rag baa fadhiyo oo kuraasta u taalaabo kaamiradan way ku xiran yihiin soo ma bixi karo okay su'aasha waalidku weydiiyeen macallimiinta waxay doonaan anigu weydiin la ilaahay booska si ma istaajiyeen aniga intii muslinabe haduu wiilkayga aad leedihiin ma bixin ani leedihiin ma joogo wiilkayga meeshaad geyseen baa leedin ka rabaa waxay yiraahdeen we don't know simple does exactly what lagu dhahay waalidka we don't know markaas ku yiraahdo we don't know idinka ma saaraysa inaad ogaataan waa shaqadiina waa shaqada meelahan u furateen number 1 number 2 lacagta iyaga qaadanaysan sanad walba almuhim laamihi amnigu waxay dhaheen baaritaan baa bilaabayna wiilkii kiiskiisii baa la furay si dhaqsiyaha badan leh wiilka family-giisuna sawiradiisa ayay iyo de qoraalo iyo kulli sawiradu idinka waa idin soo dhigi doonaa arki doontiin laamiyada lagu dhijiyay website-yada la soo dhigay social media la soo dhigay TV-yada la soo dhigay idaacadaha show-yada war meel la soo dhigin malahan family-giisu waxay qabteen $7,000 Mareykanka qofkii wiilkan yar soo helo wax maaragtay macluumaada ka keena laakiin wali wax ma hayno laamaha amnigane waxaa la family-gu ay sheegeen wiilka yar hooyadiisa la sheegay ee sheegayso inay waxay dareensan tahay laamaha amnigu inay ka caajiidayaan wiilka yar sheekadiisa iskuulkii dhexdeedaba waxaa la keenay laamaha amniga waxay keeneen iyo laamaha amniga mise booliska oo inuu dhex lugeeyo gees to gees la lugeeyo helicopter lagu raadiyo boolisku raadiyaan ayuhu raadiyaan because wiilkeen wuxuu ku dhunsay waa iskuulka dhexdeeda there is no reason banaan looga raadin karo maadaama ayba dhaheen ma bixi karo wax haday ku dhacanaya duu wax naqday oo khashar iyo khayr buu iskuulka dhexdiisa ku noqday ayaga macallimiinta isku marqaati furay soo hadaba inaad arka caliya wiilkii yaraa kaaliba adigu hel milix lagu dhexriday biyo